waa qiso aad iyo aad u xanuun badan oo ciwaankeedu yahay geerida saaxiibkay aniga ayaa sabab u noqday. Haddaba saaxiibayaal, halkan waa qiso iyo qalin. Waxaan ku soo gudbiyaa qisooyinka nolosha, taariikhaha, sheekooyinka xigmadaha. Haddaba muuqaalka noo leekaray, channelkana subscribe noo soo dhis si aan meel fiican u gaarno. Aan gudagalno muuqaalkan. Muddo 8 sano ah ayaa ka soo wareegtay daqiiqad qalbigayga kama bixin dhacdadaas. 8 sano ka hor waxaan ahayn aniga iyo saaxiibkay fasalka afraad, kaasoo gabagabo inoo ahay. Saaxiibkay aad iyo aad ayaan iskugu dhoweyn, isku jeclayn, oo xitaa kuwa nala dhashay waan iskaga dhoweyn. Xitaa magaciisa waan kala xishoo jiray saaxiibkay. Walaalkay ayuu ahaa. Dugsi hoose ilaa dugsi sare ayaan isla soo dhamaynay. Waxaan galnay imtixaankii shahaadiga ee dugsiga sare. Kadib aniga iyo dhalinyaro kale oo aan hogaaminayno aniga iyo saaxiibkay ayaa ku heshiinay inaan xaflad dhiganno maadaama uu noo soo gabagaboobay dugsiga sare. Xafladdii ayaan dhigannay sawirro badan iyo farxad iyo baashaal. Kadib xafladdii way soo dhammaatay. Hoteelka xafladda iridiisa waxaa fadhiyay waardiye kaasoo haystay qori. Kadib markaan soo baxay ayuu saaxiibkay ninkii ku yiri ii dhiib aan isku sawiree, wuuna u dhiibay. Kadibna wuu isku sawiray. Kadib aniga ayaa waxaan ku iri ii dhiib aniguna aan isku sawiree. Kadibna wuu ii dhiibay. Markaas ayaan waxaan ku iri waardiyihii qoriga ammaankiisa iga hubi inuu xiran yahay iyo in kale. Wuxuuna igu yiri waa xiran yahay. Saaxiibkay ayaan ku jeediyey anoo la ciyaaraya, oo aniga iyo saaxiibkay dad aad iskugu kaftama oo isla ciyaar ayaan ahayn. Ilaa iyo hadda waan is su'aalaa sida ay xabaddu qoriga uga soo dhacday, sababtoo ah ma taaban riishada qoriga. Waxaan hal mar ka war helay xabad dhacday iyo saaxiibkay oo dhulka yaal. Bartii ayaan caag ku noqday. Dadka ayaa meeshii isugu yimid. Saaxiibkay haddii lala cararay isbitaalna la geeyey waa meyd. Habeenkaas 1000 jeer ayaan ku fekeray inaan isdilo. Adiga arrinkii qaraabada iyo qabiilku markay isu yimaadeen oo la baaray ayaa la ogaaday inay kama ahayd oo ay iga fakatay xabaddu. Mar walba waxaan ku celcelin jiray in la idilo oo tiirka la igeeyo, laakiin saaxiibkay reerkiisa reer wanaagsan ayay ahaayeen. Bal aniga ayayba caafimaadkayga la tacaalayeen oo diya inay qaataan way diideen, sababtoo ah labada reer way ogaayeen sidii walaalihii inaan ahayn. Waxaa la keenay meydka saaxiibkay si loo aaso. Aaskii saaxiibkay ayaan ka qayb galay. Saacad ka badan ayay ku qaadatay dadkii inay iga fujiyaan meydka. Dadkii waxay u kala qaybsameen kuwa dhaha bal suga ha macasalaameeyo, iyo kuwa dhaha war wuxuu waalan yahay ee meydka ka fujiya. Ugu dambayn waa la isugu kay tegey waana la iga fujiyey. Sidii ayaa lagu aasay saaxiibkay. Subax alla keeno oo qorraxdu soo baxdo, qabrigiisa ayaan dul taagnaan jiray ilaa heer laga baqay inaan waasho. Waayo marna waan aqbali waayey saaxiibkay inaan anigu dilay. Saaxiibkan dunida ugu jeclaa haddaan maqlo qof magaciisa oo kale leh asaga ayaan moodi jiray. Ugu dambayn meeshii waa la iga kaxeeyey. Saaxiibkay faamilkiisa iyo faamilkaygu waxay ahaayeen sida dad wada dhashay oo kale. Gurigiisa iyo gurigayga markaan joogno hal ayay noo ahaayeen. Kenya ayaan tegey. Xanuun dheer kadib waan fiicnaaday. Jaamacad ayaan bilaabay. Mar dhow ayaan dhameeyey. Laakiin salaad walba dabadeed marna kama tago inaan saaxiibkay u duceeyo. Ina adeertiis ayaan guursaday. Wiil ayaan dhalay. 2024 dhammaadkeedii waxaan ku sameeyey saaxiibkay. Mar walba oo aan dhacdada soo xasuustana xanuun iyo xasuuso xun ayaan galaa. Magaaladaydii waqtigaas ayaa iigu dambeysay. Ilaa hadda ma tegin, laakiin faamilkiisa waan xiriiriyaa. Alxamdulillaah. Wax walba waa qadar Ilaahay. Allah ha u naxariisto saaxiibkay. Runtii waa qiso aad iyo aad u xanuun badan. Wax ka xanuun badanna ma jiraan in saaxiibka oo yacni booska walaalka kuu taagan in gacantaada lagu sababo oo adiga uu ku saabsado. Waxaan leenahay saaxiib qadartu way dhacdaa. Iska sabir ayaan leenahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha u naxariisto saaxiibka. Waayo ma aadan rabin inaad disho, balse Rabbi baa kugu sababay. Marka Allah u naxariisto ayaan leenahay saaxiibkeen. Weligaana qof saaxiibka ah ha ku taagin hubka, maxaa yeelay diinteenna suuban xataa way diiday qofka hadduu xitaa waxa waaye ay yacni hubku hub iska caadi u yahay qofka inaad ku taagto. waa qof walaalka ah marna ha ku taagin hub. Waa mahadsantihiin saaxiibayaal. Muuqaalkana la gareeyo oo share gareeyo si uu meel fog u gaaro.